رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله أن labada muxaadare ugu qoran waxay tilmaamayaan fannu dacwa iyo wasaa'ilu dacwa dacwada islaamiga ah oo ah inaynu islaamka dadka gaadhsiino qaabka loo samaynayo iyo dacwadaas lafteedu waxay tahay yani markaynu fannu dacwa ka warramayno runtii waa waxaad u ballaadhan maxaynu dadka ugu yeedhaynaa sidee baynu dadka ugu yeedhnaa halkaynu ka bilaabaynaa camanaad ama fannu dacwahaynu sheegaynaa waa cilmiga ku saabsan qaabka dadka diinta loo gaadhsiinayo hadday tahay caqiido hadday tahay shareeco hadday tahay akhlaaq caqiido islaamnimada oo dhan bini aadamka sidii loo gaadhsiin lahaa idan waxay inooga baahan tahay dhowr shay oo midi waxa weeyaan mabda'a laftiisa aynu rabno inaynu dadka ugu yeedhno o gaadhsiino inaynu si fiican u fahamno midi waxa weeyaan inaynu fahamno mujtamacaadka aynu la hadlayno ee rabno inaynu diinta gaadhsiino hadday mujtamac muslima yihiin iyo hadday mujtamac gaala yihiin iyo thaqaafaadkooda iyo wuxuu yahay midi wuxuu yahay xaggaynu wax ka bilaabaynaa dadkan aynu la hadlayna xaggee waxu marayaan maxaynu tarkiisinaynaa ama maxaynu xoogga saaraynaa oo markuu mujtamacaad la hadlaysaa mujtamac muslima yahay iyo mujtamac gaale markuu yahay waa kala nooc mujtamaca muslimka ah inxiraafaadkiisa iyo akhtaadiisa iyo waxa ku jira waa kala gedisan yihiin maxay yihiin inxiraafaadka ama qalqalloocyada ugu waaweyn ee bulshadu ay leedahay ee mudan in la horraysiiyo intaan kuwa yaryar laga hadal waxaynu kaloo isweydiin doonaa waa maxay wasaa'isha qaababka ama hababka haddii loo maro baaqaasi ama yeedhmadaasi aynu dadka diinta ugu yeedhayna ay guulaysanayso muxuu yahay waxa laga rabo qofka isagu shaqadaa u qumay ee u kacaya inuu ku sifoobo ee caqiidaha ee akhlaaqa ee dhaqana ee wacyi ee thaqaafe ee aragtiya maxaa laga rabaa qofka kale inuu ku sifoobo idan waa mawduuc ballaadhan runtii laakiin waxaan isku dayaynaa inaynu tilmaamuun inagu bixinno waayo darsiga sheegayno waa fanni ay si fiican u yaqaaniin dadka saadiqiinta ee bartay sida funuunta kaleba ay la mid tahay handasadu waa fan muhandiskaa si fiican u yaqaana qaabka loo dhisayo farsamo yaqaanimo weeyaan waxaynu ka rabnaa markaa qof kasta oo raba inuu diinta ilaahay dadka ugu yeedhay inuu farsamo yaqaan yahay garanaya farsamada uu dadka ugu yeedhayo iyo wuxuu ugu yeedhayo dadku cumuuman basharka oo dhami cumuuman dadku waa daaci qaarna khayr bay dadka ugu yeedhayaan qaarna shar bay ugu yeedhayaan dunida aynu maanta ku noolayna 3 shay bay yidhaahdeen baa globalizationka sharxa waa xorriyati xarakati almaali walbadaa'ic والناس والأفكار بيدادان globalization كان دنبه أما عولمدان أما أدون كان دنبه الله يسكفري الدنيا دا يكون باقي سي وحويان إن مالك يا بضائع ده وحنا كلا قدنا يا أفكارته يا بني آدم كوبا حر نقدان وصعون كران لكن سيدا بدن qolada horu martay ee xoog gale dhankoodu ka socda kuwa kale dhankoodana uu ku socdaa haddaba inagu ka muslim ahaan ka diin ahaan badaa'ic maaha waxaynu iibgeynaynaa waa afkaar maaha waa caqaa'id xagga alle ka timi subxaana wa tacaala nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam ilaahay baa qur-aanka kula hadla wuxuu ihi qul dadka waxaad ku tidhaahdaa hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay le waa loo laqimayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam haadihi sabiili tani waa jidkaygii waa waddadaydii waa jidkii loo soo waxyooday ee waxyiga ayaa la yidhi mar kani waa waddadaydii dheh oo waddada tani maxay qabanaysaa adcuu ila allahi calaa basiira ilaahay subxaanahu wa tacaala baan dadka ugu yeedhaya anigoo basiiro ku sugan aqoon aragti anigoo ku sugan anigoo wax garanaya
ana waman ittabicani aniga iyo inta i raacsiisanba waxay culammadu yidhaahdaan basiirada tan uu ku yeedhayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga iyo inta raacsanima ay dadka ugu yeedhayaan ilaahay jidkiisu maxay tahay sheekh alcuthaymiin oo kale wuxuu tilmaamayaa waa 3 nooc basiiradu ka koowaad waxa weeyaan albasiira fima yadcuu ilayhi wuxuu dadka ugu yeedhaya inuu garanayo oo alkitaab wa sunna waxyiga waxaana aad mabda'a inaad garanayso aad dadka ugu yeedhayso ka labaadna waxa weeyaan inaad garanayso qofka aad u yeedhayso iyo xaalkiisi wuxuu yahay ma qof munkiraba oo diinba diidan ma qof mu'mina laakiin cisyaan iyo cibaado xumo ku sugan ba ma qof ghaafil aan waxba ogeynba ma qof wax ogoo wax canaadaya waxaasoo dhan waxay keensanayaan qaabkaad ula hadlaysa iyo waxaad ugu yeedhaysa inay kala nooc ahaadaan idan xaalul madcuwi qofkan aad u yeedhayso thaqaafadiisa iyo aragtidiisa iyo mawaaqiftiisa waa inaad garanaysaa ka saddexaadna waxa weeyaan kayfiyatu dacwa qaabkaad hadalka u dhigayso sida aad wax uga dhaadhicinayso qaabka aad u qanaaca aad u qancin karto saddexdaas shayba waa in la gartaa haddaba waxaynu leenahay addacwa waa baaq horta eraygu af carabiga dacaa inaada dacaa waa bariyey waa yeedhay waa qayliyey halkan waxaynu uga jeednaa dadkoo loogu yeedho loogu baaqo ilaahay jidkiisa inay raacaan haddaba waxay culammadu yidhaahdaan muhimadda marka koowaad dacwadu ay leedahay waxa weeyaan waa nolosha diimaha iyo mabaadi'daba diintii dadkeedu ku yeedhi waayaa way dhimataa mabda'ii dadkiisu ku yeedhi waayaan wuu dhintaa cid kasta oo mabaadi' wadda ama diin wadda ama afkaar wadda waxay isku daysaa inay faafiso inay dadka ugu yeedho inay sharaxdo hadday taa samayn weydo waa dumaysaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam innagana wuxuu inugula ballamay balliquu cannii walow aaya iga gaadhsiiya dadka hal aayadan ha noqotee waayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inta uu dunida maray ee gaadhay waa wax tirsan waa maka iyo jasiirat alcarab inta ku weegaaran oo quruu nebi maxamed tegay calayhi salaatu wasalaam haddana qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas dadkao dhan baanu kuu soo dirnay inaad nadiiran lilcaalamiin noqotaa loo soo diray caalamkana ma gaadhina intaasoo quru gaadhay waxaa la faray intuu dad rabbeeyo diinta baro inuu iyagana xilka saaro diintu ay saa u faafto idan qof walow ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilkaasuu nebi maxamed yidhi qaad balliquu cannii walow aaya haddaba dadku waagan dambe way fudaydsadeen laakiin dacwad iyo ahmiyaddeedaan idiin tilmaamaya waxaan ciidamada iyo dowladuhu samaynin buu samaysaa ciidamada iyo dowladuhu dhul bay furtaan saxiixa maaha dowladdu dhulkay qabsanaysaa laakiin dadka qulubtooda ma furato dadku waxay u arkaan in la gumaysanayo in la xoogayo in la boobayo waxay dagaal ugu jiraan uun sidii ay isaga dhicin lahayen isaga kicin lahaayeen mahma dowladdu ay xoog badan tahay laakiin ciidamaa jira dadka quluubtooda furta haddii qalbigaaga la furto adaa can tawcin da u raacaya adaa mabda'a qaatay oo ku qancay oo raacaya dacwadu waa ciidankii quluubta bini aadamka furan lahaa sidaa ogeed ayaa islaamku wuxuu soo maray wakhtiyo uu daciifiyey wakhtiyo laga xoog badan yahay haddana taariikhda waxaa la hayaa inuu faafayay uun wakhtigan aynu maanta noollay waxaa la yidhaahdaa dee muslimiintu waa la dullaystay waa dadka dowladaha dunida ugu daciifsan dhulkoodunbaa la boobaayoo dagaal ka socda rabshadi ka jirta mashaakil ka jira deganaanshiya la-ani ka jirta haddana waxaa la leeyahay diinta islaamka ugu faafid badan waa labaan isqabanaynin dad la haysto dalkoodii iyo dhulkoodii iyo maalkoodii iyo waxoodii baa la haysto iyo dadkii maqluubka laga xooga batay oo haddana waxay rumaysanaayeen faafayaan minta ka cajab badan aan idiin sheego taariikhihii muslimku uu soo maray waxaa jirta taariikh dhulka lala simay
niman tataar la yidhaahdaa mongolia iyo agagaarkeed iyo meelahaasay ka soo bilaabeen dabeetana caalamulislaami dhulkay dhigeen dowladahan iminka la yidhahda rushiya ka go-een iyo kuwan uu haysto chinesku turkistan asharqiya iyo dhulkaasoo dhan bay muslim bay ahaayeen waxaasoo dhan cagtay soo mariyeen indiya agagaarkeeda iyo bakistan iyo afghanistan iyo waxaasoo dhan cagtay mariyeen persia oo dhan cagtay mariyeen ciraaq iyo baqdaad iyo jaziira alcarabiya cagtay mariyeen dimashq iyo falastiin iyo intan cagtay mariyeen turkiya intan sare cagtay mariyeen bal yurub qayb badan oo ka mida bay cagta mariyeen dowladdii islaamiga ee masar ka jirtay ee mamaaligta la odhan jiray ayaa falastiin gudaheeda dagaalkii koowaad ee si fiican loo jabiyey halkaasaa lagu jabiyey okay ha la jabiyo halkaa marka lagu jabiyey waxaa laga nabadgeliyey intii afrika muslimka ahayd intii kale way soo qabsadeen waxa aanay gaadhin waa maxay waa afrikadan waqooyi iyo maxaa la yidhahdaa inihii ka agdhadhawaa muslimka intii kaleo dhan way qabsadeen haddana tataarkii caynkaas ee muslimka ka xoog batay oo garaacay oo tumay jinkis khan xad buu soo saaray xayawaan iyagoo gowracaya haddii la arko in la laayo mamnuuc bay ahayd inay xoolaha sida islaamka loo qalo bale qobolay ciddii soo sheegta buu yidhi kii isaga ka dambeeyey ciddii soo sheegta abaalmar buu leeyahy nin muslimo neef xoolaa gowracaya haddii la arko xadkaasaa la gaadhsiiyey waddanadii dhammaa ee xadaaradda iyo horumarka magaalooyinkii dunida ugu weynaa wakhtigaa caalamulislaamay ku yaaleen dhulkii ugu cilmi badnaa caalamulislaamay ku yaaleen jaamacaadkii ugu ballaadhnaa caalamulislaamay ku yaaleen maktabaadkii dunida ugu weynaa caalamulislaamay ku yaaleen wuxuu dhan cagta la mariyey sidaa markii cagta loo mariyey ducaad baa bilowday 100 sano intaanay kasoo wareegin dowladdii tataarka ahayd oo 4 qaybood u kala jabtay 4teedii qayboodba diinta la geliyey way islaameen iyagaa markii dambe noqday dad islaamka ilaalinaya u doodaya arnold ninkan le the preaching of islam waa nin mustashriqa kitaab buu leeyahy la yidhaha dacwa ila alislaam the preaching of islam wuxuu leeyahay waa min agrab alxawaadis fi taariikh taariikhda bini aadamka dhacdooyin la arko waa kuwa ugu qariibsan buu leeyahy waa kuwa ugu yaabka badan leh in kuwii wax qabsaday ee wax gumaysanayay ee meesha haystay ay qaataan diinta kuwii ay tumayeen waa wax qariiba buu leeyahy aan hore loo arag waxaynu leenahay nimankan la yidhaahdo wadanadii shuuciga ahaan jira waxaa jiri jiray taalla intay dhisaan yidhahdaan aljundiy almajhuul daljirka dahsoon taallada daljirka dahsoon ducaaddaa daljirka dahsoon ee rasmiga oo dadkii wax bedelaya haddaba waxaynu leenahay wax la yaraysta maaha bini aadamka qalbigiisa inaad furataa waa wax weyn waana wax laga rabo qof kastoo muslima dhowr shay baan markaa tilmaami doonaa ugu horreyn kow waxaan tilmaami doonaa fadligeeda ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal fiican cidnaba kama war fiicna baa ilaahay yidhi ninka dadka ugu yeedhay ilaahay miman dacaa ila allah dadka qofkii alla ugu yeedhay inay raacaan oo isaguna ku dhaqma wacamila saalixan oo waqaala yidhaahdaa inanii min almuslimiin intimaagiisa iyo cidda uu nisbe sheeganayaana ay islaamnimo noqoto ninka war fiicani ma jira baa ilaahay leeyahy inay dadka ugu fiican yihiin waxaad ku garan kartaa dee waa shaqadii dadka ilaahay uu doortay ee dunida ugu fiicnaa dunida yaa ugu fiican rusushiiyo ambiyada socankaa maaha rusushiiyo ambiyada shaqadoodu dee waa inay dadka diinta gaadhsiiyaan walaqad bacatnaa fi kulli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu طaaguut faminhum man hada allah ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أمت كست الرسول بانو صادر الدين توقير يبا إلهي لي سبحانه وتعالى نبي الله محمد وأفضلهم با إلهي وحكولي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. waxaynu kaloo leenahay ummadda nebi maxamed khayrka lagu sheegay waa halkay ka heshay. ummadda nebi maxamed baa dadka u khayr badan sooma maqashaan, u fadli badan. waay ilaahay baa wuxuu leeyay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas tu'minuuna billah. samahaa dadka faraysaan baa ilaahay leeyay, xumahana waa ka reebaysaan, ilaahayna waa rumaysantiin. yacni dacwaddaa ku qumaysaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay saxaabiga caliy bnu abi aalib ahaa, fawallaahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min an yakuuna laka xumru nacam. ilaahay baan ku dhaartay qof qura in ilaahay gacantaada ku soo hanuuniyo ayaa gela cascas kaaga fiican buu nebigu leeyahy. isagoo dagaal ku socda oo ciidama ay isweerarayaan baa taladii la siinaya waxa weeyaan dadkan idallaysa maaha muhiimadda koowaad. muhiimadda koowaad waa dadkan diinta ugu yeedho. marka qof quroo ka mid oo ilaahay uu ku hanuuniyo ayaa gela cascas kaaga fiican baa la leeyahy. waxaa kuugu filan fadligeeda inay tahay waxa liibaan adduuniya aakhiraba lagu helo. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar waulaa'ika hum lmuflixuun. ha idinka mid noqota baa ilaahay leeyahy ummad, koox dadka ugu yeedha khayrka, samaha farta, xumaha ka reebta. kuwaas baana ah kuwa liibaanay baa ilaahay leeyahy. aakhiriya adduunba kuwaasaa liibaanay. ulaa'ika hum lmuflixuun. ibnu kathiir raxmat ullaahi calayhi tafsiirkiisa markuu fasiraya aayadda tan wuxuu leeyahy walmaqsuudu min hadihi alaaya an takuna firqa min alumma mutasadiya lihada shani wain kana dalika waajiban cala kuli fardin min alummati bixasbi. wuxuu leeyahy ibnu kathiir aayadda tan waxaa laga fahmayaa in la leeyahay ummadda muslimiinta ha ka mid noqoto koox iyadu shaqada tan u banbaxda, inkastoo buu leeyahay qof kastoo ummadda ka mid ay waajib ku tahay. qof kastoo ummadda ka mid inuu diintan xambaaro waa waajib, waa mas-uuliyat ljamiic. laakiin buu leeyahay haddana ha ka mid noqoto qolo takhasuska qaadatay oo iyagu shaqadan si gaara u qabatay. dabeetana xadiidkii saxiixu muslimku daliishanayaa man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan iyo walaysa wara'a dalika min aliimaani xabatu khardalin. xadiis sheegaya qofku laabud inay tahay inuu inkaarulmunkar la yimaado, haddii kale inay iimaanku uu daciif iyo amaanu jiraynin. fadligeeda waxaa kuugu filan haddaad iska aamusto diinta qariso kuwa la nacdalaad ku biiraysa. ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun. kuwa qarinaya baa ilaahay yidhi wixii caddaymay iyo xanuunaan soo dejiyey intii aan dadka u caddeeyey kadib ka qariyey, kuwa ilaahay baa lacnaday. kuwa wax lacnadoo dhammina way lacnadayaan. idan ayuha alaxiba waxaynu leenahay fadli intaasaa ku filan aynu soo tilmaamnay. ciqaabna inta aynu soo sheegnay iyo cadaabba ugu filan. waxaynu isweydiinaynaa marka limaada nadcu wa bima nadcu. kow waxaynu dadka ugu yeedhaynaa ilaahay iyo risaalada islaamika inay dadka gaadho inagoo fulinayna waajibkii ahaa balliquu canii walow aaya. laba, dadkaynu u yeedhaynaa. dadka waxaynu ugu yeedhaynaa diinta oo hadday ina diidaanna maya iska aamusaynaa, maya waa ugu yeedhaynaa. qofka daaciga ah saddexdaba uu danaynaya. kow wuxuu danaynayaa inay ilaahay rumeeyaan walacallahum yattaquun. kuwii reer banu israa'iil ee inta la yidhi sabtida ha ugaadhsanina iska ugaadhsatay ee qola isku dayday isla iyaga ka mid inay wacdiyaan qolana iska aamustay. waa 3 kooxood bay noqdeen. qolo ugaadhsigii laga mamnuucay samaysay, iyo qolo tidhi nimankan meel baas baa looga yeedhayaayoo iskaga aamustay, iyo qolo wacdiday. marka
qoladii aamustaa waxay yidhaahdeen lima taciduuna qawman illahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida oo maxaa uga yeedhaysaan dad ilaahay halaagaya ama cadaab kulul alla uu ku wado waxay ku yidhahdeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun kow macdira annagu inaanu badbaadno aakhiro oo adiga waa lagu weydiinaya ma gaadhsiisay dadka walacallahum yattaquun waa bini aadamkii dee diintuba u soo degtay walacallahum yattaquun inay hanuunaan baa la arkaa saddex culammadu waxay yidhaahdaan waxaa looga dan leeyay in iyagana xujada lagu ogo oo aakhiro aanay cudurdaar helin waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa aakhiro nebiyaa iman doona nebi aan cidiba la socon iyo nebi qof la socdo iyo nebi laba la socoto nebi saddex la socdo oo nebiyadaas dacwadii miyay ku fashileen maya dacwadii laga raba way guteen hadday dadku rumayn waayaan ilaahay oo raaci waayaan iyaga xilka saaraa waxaa inay xujada ku ogaan oo aakhiro aanay xujo helin ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay rusulan mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul wakaana allahu casiizan xakiima waxaan soo dirnay baa ilahay leeyahay rusul mubashiriin iyo mundiriin ba ah maxaa loo soo diray lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul inaanay dadkaasi aakhiro xujo helin rusushu inta ay u timid gadaashay idan inay xujada ku ogaan waa min camali rusul inaad xujada ku ogtaa waa min dacwatik sharti maaha inaad tidhahdo dee wala aqbali waaye maxaan sameeyaa u sheeg adigu ha aqbali waaye isagay saaranta adigu dadka qulubtooda ma hanatid ilaahay baa xukuma qofna iimaanka qasab kuma gelan kartid adiga waxaa lagaa rabay wasaa'ilu liqnaac inaad qaadato qaabka bini aadamka loo qanciyo qaabka loola hadlo qaabka wax looga dhaadhiciyo hadduu se diido lahu lxuriya isagaa rabbigii abuurtay xorriyadda siiyey hadduu diido isagay jirtaa aakhiro cudurdaar heli maayo waxaan leenahay maxaynu dacwada u samaynaynaa inaynu ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabaadka samada ka soo degaya ka badbaadno qoladaa wax waanisay ilaahay wuxuu leeyahy falamaa nasuu maa dukiruu bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين إلهي وحلي مركي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وحن بدبادني كوي دتك حمها كان نهينا يبا إلهي كوي كلنا ولا هلاك كوي دتك حمها كريبي ولا بدبادي idan inaynu ilaahay cadaabkiisa adduunka kaga magan gallo darteed baan ugu yeedhaynaa waan yeedhaynaa dadka diintaan ugu baaqaynaa waayo inaynu dulumaadka ka saarno iftiinka u saarno adduunkaynu maanta ku noolay mushkilaad baa halkaa taagan dunidu dhib bay la ciirciiraysaa xalkeediina waanu haynaa xalkeedii wuxuu ku jiraa ilaahay kitaabkiisa ilaahay baa u soo dejiyey basharku fii taariikhi mar kasta uu weecdo oo caqiidadu ka lunto dhaqamaduna way ka lumi jireen qur-aanku wuxuu ka warramayaa dad weecday oo dhaqaalihii boobay oo xumeeyey dad weecday oo siyaasadii boobay oo xumeeyey dictatorship la yimi dad weecday oo akhlaaqiyaadkii ka xumaadeen dad weecday oo xadaaradoodii qalloocsantay waxaasoo dhan baa qur-aanku ka warramay waxaasoo nebi iyo rasuul loo soo diray dadkaasoo dhan waxaa loogu soo dirayay inay nolosha bini aadamka saxaan waxaan leenahay dunida maanta isdilka ka jira tirada badan leh diin baa saxda tawxiid ilaahay lagu xidha baa saxa waxaan leenahay dunida mashaakilka haysta ee akhlaaqiga ah ilaahay oo lagu xidha baa saxa waxaan leenahay dunida maanta cadaalad xumada ka jirta iyo tharwadii dhulka taalay ee ilaahay bini aadamka uu ka dhexaysiiyey dadka badhna boobayaan badhna laga qadinaya ama lagu dilayo cadaalatu tawsiic ilaahay kitaabkiisa ku jirta waxaan leenahay xuquuqdan bini aadamkaa luntay ee adduunka mashaakilkan yaalla in la soo celiyaa ilaahay kitaabkiisa ku jirta waxaan leenahay mashaakil kastoo maanta dunida taagan kitaabkan qur-aanka baa u xala rasushana waxaa loo soo diray inay dadka laayaanba wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay tilmaamaya waxaan kuu soo diray inaad dunida naxariis u noqotid idan waxaan leenahay
biaydina buu ku jiraa wixii dunida bini aadamku ku badbaadi lahaa laakiin dadka laguma qasbe waa loo sharxaa waa lagu qanciyaa haddaba waxaan leenahay waxaynu u yeedhaynaa naxariis aan rabno inaan aadanaha u naxno naxariis aan rabno dhibta dunida taalla inaan ka faydno halkeeba inaad tidhahdo oo innagaaba kuweennii ugu dhib badan yihiin dee waa diin la-aanta innaga lafteenna waxaan leenahay caalamka mashaakilka jira meeshuu doonaha ka jiro waa cadam hadday tacliim tahay iyo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday maamul tahay hadday wax kala tahayba waxa halkan lagu hayo waxa halkan lagu haya waa isku noocunde sida weliba loo isticmaalaa kala fool xun sida loo isticmaalaa unba kala fool xun laakiin mabaadi'duna waa isku mid wasaayishuna waa isku mid waxaan oo dhammi waa isku mid halkana dimuqraasi laga sheegaya xaggana dimuqraasi ama been laga sheegaya ama runa laga sheegaya waxaan leenahay markaa waxaan dadka ugu yeedhaynaa fasaadka dunida ka jira iyo dulumaadka bini aadamku uu ku jiro in looga naxariisto hidaayada la geeyo nuurka liyukhrijahum min adulumaati ila nuur baa ilaahay leeyahy rusushaba waxaan u soo diray mugdiyada inay bini aadamka ka saaraan ay u saaraan maxay nuurka alle u soo diray waxaynu dacwadda dadka ugu yeedhaynaa bay leenahay waa cibaadaadka ugu weyn ee ilaahay lagu caabudo mid ka mid ah bal waa cibaada mutacadiyati nafci bay yidhaahdaan waa cibaadaadka nafcigeedu uu ballaadhan yahay dadka gaadhayo haddaad maanta qof diinta ugu yeedho oo islaamo wuxuu camal islaamiya shaqaysto oo dhan in legba adigana ilaahay kuu qoraya haddaad 10 qof maanta salaada bartid oo ay salaada tukadaan 10kaa iyo taadii 11 qof salaadood baa maalin kasta lagu qoraya adigu miyaad maalin kasta tukan kartaa 11 qof salaadood maya idan waa wasiila bay yidhaahdaan waa cibaada mutacadiyati nafc kuwan aad u sheegtayna way ku badbaadayaan adna ajar baad ka dhargaysaa sida ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajru faacili waa laga yaabaa inaad halkaa fadhiisato inaad qur-aan iska akhrisan lahayd saacadda waxaa kasii fadli badan adigoo saacadda qur-aanka u dhiga dadka waayo dadkaasi mar kastoo ay qur-aanka akhriyaanba fadligii baad leedahay mar kastoo ay cibaadaystaanba waxay ku cibaadaysan iyaga intoodii way leeyihin adna in la mida baad leedahay idan waxaan leenahay inayn dadka diinta ugu yeedhnaa oo hanuuninaa waxay la mid tahay inagu rabna inaynu cibaadaysano saa daraaddeed culays kuguma noqonayso dacwadu haddaad ogtay inaad adigu shaqaysanayso maalan haddaad is leedahay dadka kalaada caawinaysa waxaa laga yaabaa inaad tiraa maalin walba waanu u shaqaynaa iyo tiro badana miyaanu wadaynaa un laakiin haddaad rumaysantay inaad adigu shaqaysan adigu shaqadaada miyaad ka daashaa maya waa beryaba wad soo kala haysaa ma lihid waayo waxaad ogtay inaad adigu xoogsanayso qofka muslimka ee dhabtee daaciga ahi wuxuu rumaysan yahay inuu isagu rabo inuu ilaahay u dhowaado cibaadadii uu la yimi waa loo qorayaa dadkii uu ugu yeedhay diinta ajarkeedii waa loo qorayaa hadday ku dhaqmaanna ajar kale loo sii qorayaa waxaynu kaloo leenahay waa wasiiladaynu dadka muslimiinta ku islaaxin lahayn ee xaaraan iyo xalaal ku kala bari lahayn idan sababahaasoo dhan waxay keensanayaan inaynu dadka diinta ugu yeedhno maxaynu dadka ugu yeedhaynaa waxaynu ugu yeedhaynaa ilaahay kitaabkiisa eraygaa u fiirso dadka ma waxaynu ugu yeedhaynaa inay urura galaan ururka iyaga ku soo bir jamaacadayada ka mid noqo saalixyadayada qaadariyadayada ka mid noqo ururo kaloo magacyo kala mid noqo ma dadka urur baynu ugu yeedhaynaa oo koox baynu rabnaa inay badato maya waxaan rabnaa in muslimku bato waxaan rabnaa dadku inay islaamaan waxaan rabnaa dadku inay islaaxaan alintimaa ila aljamaacaat asagiira marar badan bay dadka waxay dhaafiyeen oo hilmaamiyeen wixii weynaaya dadka loogu yeedhayeyba oo ilaahay muxuu leeyahy waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi baa la yidhi yaa ka war fiican ninka dadka alla ugu yeedha war dadkiiya ilaahay baan rabnaa inaan isbarro dadku inay ilaahay ku xidhmaan baan rabnaa hada huwa alasal waa dhici kartaa inu idhaahno masaajidkan inteenna joogtaa aan shaqada wada qabanno
kaasi waa wasiila laakiin shaqadaynu qabanaynaa waa maxay waa inaynu dadka ilaahay ugu yeedhna dee maaha inaynu dadkan idhaahno masaajidka iyaga mimbar ka noqda masaajidda kale ka soo baxo ka iyaga mimbar ka noqda haddaynu dadka ugu yeedhno ka warran maya dadka waxaynu ugu yeedhaynay inay ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhmaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi baa nabiga lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa kani waa jidkaygii ilaahay baan dadka ugu yeedhayaa dhe baa nebi maxamed lagu yidhi adcuu ila allah ilaahay markuu farayay waxaa lagu yidhi udcuu ilaa sabiili rabbik ilaahay jidkiisa dadka ugu yeedh tan maxaan u adkaynayaa dadka badh baa wasaa'ishii iyo ahdaaftii iyo mabaadi'dii iskaga qaldantay waxyaabahan laysleeyahay camalkay fudaydinayaan iyo camalka laftiisii baa isku qaldamay waa inay caddaataa dadka waxaynu ugu yeedhaynaa inay tahay ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa dadka ugu yeedhi maayo inay aniga ay raacaan ugu yeedhi maayo taageerayaal ii noqda idinma lihi iyo dad aniga ay ayido oo iga dambeeya dad aniga kooxdan ku jiro gala dad aniga ila koox noqda maya waxaan ugu yeedhayaa dadku inay ilaahay subxaana watacaala ku xidhmaan rabbigood inay caabudaan ilaahay kitaabkiisa inay u hoggaansamaan waxaan leenahay yeedhmo dad loo yeedho waxa ugu fiican ku dhaqan adigu aad ku dhaqantid oo camalkaagu inuu dadka ugu yeedho dadka badh baan waxaynu maqalnaa warkayga qaado oo camalkayga iska ilow qofku intuu dhaqankaaga eegayaa waxay ka badantay waxa qalbigaaga ku jira iyo waxaad ku hadlaysa intuu danaynayo مثلا waxaan leenahay muslimiin baynu waddanka baynu joognaa dadka islaamnimaynu ugu yeedhaynaa islaamnimadu maxay sheegaysaa been ha sheegin tuuga ha sheegin waxa hamanin khamriga ha cabbin ha zinaysanin intiiba haddaad suuqa la gasho dadka maxaad ugu yeedhaysaa muxuu rumaysanaanayaa qofka waddankan u dhashay inaad adigu sidato maxaad odhan doontaa diintaydu waxay sheegaysaa beentu inay xun tahay ee islaam diintaydu waxay sheegaysaa tuugadu inay xun tahay ee waa xadin diintaydu intiibana adaa samaynaya dacwo noqon mayso markaa waxaad afka ka sheegaysaa qiimo badan yeelan maayo waxaa qiimaha leh waa waxaad dhaqanka ka sheegayso waxaad dhaqanka ka sheegayso saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir ku dayasho fiican baa idinku sugan ilaahay rasuulkiisa qofkii ilaahay iyo maalinta aakhiro rajaynaya ee ilaahay in badan xusa ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun war kuwa ilaahiyo rasuulba rumeeyayow lima taquuluun maxaa ugu dhawaaqaysaan waxaydaan idinba samaynayn waryaadheen islaam oo khamriga iska daayo tuugada iska daayo waxaan iska daayo kan iska daayo muslim noqo ayaad ugu yeedhaysaa adna samayn maysid lima taquuluuna maa laa tafcaluun baa ilaahay leeyahy kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ilaahay agtiisa waxaa ku weyn cadho waxaanad adba samaynaynin inaad dadka ugu yeedho ilahay wuxuu leeyahy ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون dadka ma samaha faraysaan idinkuna naftiinaa ilaabaysaan baa ilaahay leeyahy dadka kalaad samaha u sheegaysaa adiguna naftaadaad ilaabaysa dadka markaad iminka u fiirsato qof waliba markuu hadlayo wuxuu daldalaya waxaad tileedahay waniyo dadku khayrkii kama dhammaanin hadhow markaad dhaqankooda eegtana waxaad tileedahay war dadku miyaanay muslimiin ahayn maxaa isweydaarsan siyaasigaa ku imanaya wuu hadlayaa wadaadkaa imanaya wuu hadlayaa odayga caaqilkaabaa hadlaya suldaan markaasaa tileedahay war dadkaba khayrkaa dhameeyey waxay sheegayaan hadhow waxa la wadaana wixii wax la mida toona ma aha dee saasi xagga nifaaqnimaday uga dhowday xagga islaamnimada ilaahay wuxuu ina leeyahy war dadka ma samaha faraysaan idinku aan idinku samaynaynin idinkoo weliba ilaahay kitaabkiisa akhrinaya war miyadan garaad lahayn baa ilaahay yidhi ilan garaadkaa intaa garanaya afalaa tacqiluun miyadan cilmi lahayn lama odhanin waxaa la yidhi war miyadan caqli lahayn miyadan garaad lahayn ilan waa wax garaad ku fahmaye waxaan leenahay haddaad rabto dadku kelmadaada inay aqbalaan oo dadka aynu diinta ugu yeedhno
dadka qulubtooda aan eegno iyaynan jeebkooda eegin. oo fiirseeraya qofku hadduu u arko diintaada inaad mansab kaga doonayso, inaad lacag kaga doonayso, inaad ku baadhanayso, wuxuu arkayaa wasiile aad ku xoogsanayso inay tahay nin soo shaqo tegay. hadduu se u arkaya inaad isaga islaaxinayso diintiisa iyo qalbigiisa iyo wanaaggiisa aad ka talinayso, wuu ku raacaya. sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa suuratu shucaraa ambiyada laga warramayo, rasuul waliba markuu yidhaha fattaqu llaha wa atiicuun, ilaahay ka cabsada oo i adeeca, ayaa waxa la leeyahy waxaad ku tidhaahdaa u odhanaya wamaa as'alukum calayhi min ajr. dacwadaan diintaan idinku yeedhayo xoola idinkagama doonayo, in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin. ajarkayga ilaahay baan ka doonayaa, ajarkayga ilaahay baan ka doonayaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa gacanta bini aadamka waxaa ku jira ka zaahid, dadkaa ku jeclaanaya. ma rabtaa dadku inay ku jeclaadaan, waxay haystaan ha hunguraynin buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. waxay haystaan ha hunguraynin. sidaa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wuxuu ku rabeeyey hanka ugu weyne ay leeyihiin inuu yahay inay janno galaan. diinta waxbaan ku rabaa, laakiin maxaan ku rabaa? janno inaan galaan ku rabaa, wax ka weyn adduunkan oo dhan. saxaabadii uu rabeeyey markii baycat alcaqaba thaniya ay heshiiska wada gelayeen, ansaar buu nabigu heshiis la galay. heshiisku wuxuu sheegayaa inuu nebi maxamed soo hijroodo calayhi salaatu wasalaam, intuu maka ka yimaado tolkii ku maageen oo ku diideen inuu diin sheego, inuu madiine yimaado. madiine hadduu yimaado waa la weerarayaa. markaa maxaa talaha? waxay la galayaan heshiis ah naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda iyo dumarkooda wixii ay ka ilaaliyaan inay isagana ka ilaalinayaan. yacni naf iyo maalba inay ku bixinayaan. maxaanu leenahay bay yidhahdeen markaanu saa yeello? haddii nin siyaasiya ama nin magacdoona ama nin thawriya, nin mabda' wataa uu kuu yimaado, uu ku yidhaha waxaan rabaa inaad taageerto oo waxay la qabataan, waxaad leedahay aan kula qabanay annaga madaxweyne kaa dhiganay, maxaanu leenahay markaad adigu madaxweyneha noqoto? de waxaa laga yaabaa inta badan inuu ku yidhaahdo wasiiradaan idin badinaya reerkiina, ama manaasib gaaraan idin siinaya, ama ilaha dhaqaalahaan idin dhiibaya, ama waxbaa. markaa waxaad leedahay ninkan heshiis baa noo xidhan, waad ku dagaalamaysaana waxaad leedahay heshiis baa noo xidhan. nebi maxamed waxay ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam, markaanu anagu naf iyo maalba kugu bixino maxaanu anana leenahay? muu odhanin wasiiraan idinka dhigaya, muu ku odhanin aniga dabadayba madaxda noqonaysaan. wuxuu ku yidhi lakum aljanna, jannaa leedin idina. yacni dadka waxay diintan u xambaarayaan ee ugu dhimanayaan waa inay akhriya adduunba badbaadaan, maha inay ku xoogsadaan. saa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy walakum aljanna. waxaynu leenahay haddaynu wax kasii tilmaamno qofkaa daaciga ee dacwadiisu naajixa tahay, waxa laga rabo waxyaabaha koowaad ee nebi maxamed ilaahay faray waxaa ka mid ah qofka raba inuu dadka u yeedhaa in isaga agtiisa ilaahay ku weynaado, qalbigiisa in islaamnimadu ku weynaato, dacwadu ku xoogaysato. oo ilaahay subxaana wa tacaala nebiga wuxuu ku yidhi yaa ayuha almudathiru qum fa andir, kan isdadayow kac oo dig baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. kac oo dig. warabbaka fakabir baa ilaahay yidhi, rabbigaana weynee. haddaad rabto diintaadu inay noqoto diin soconaysa, ama waxaad dadka u sheegaysaa waxay dadku aqbali karaan, adigu ahow mid ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisa ku mashquulsan. sida ogeedba qofka daaciga waxaa looga baahan yahay tarbiya ruuxiya xooggan inuu sameeyo si kelmadiisu ay u noqoto mid socota. qur-aanka suwarkii ugu horreeya soo dega waxaa ka mid a yaa ayuha almudathiru qum fa andir, iyo yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila. war culus baanu kuu dhiibaynaa baa ilaahay ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, laakiin warkaa culus si aad u xambaarto
oo dacwadaadu ay u meel marto habeenkii in badan oo ka mida taagnow baa ilaahay ku yidhi xidhantay bay kelmaddaaduna raad yeelanaysa haddaad ilaahay si fiican ugu xidhantay subxaana wa tacaala kelmaddaaduna raad bay yeelanaysa waxaan leenahay dacwada maxaynu u samaynaynaa waxaa ka mid a dadkaynu khayrka la jecellay intaad dacwada ku bixisaa waxay calaamad u tahay bay culammadu yidhahdaan التفاني في المبدأ إخلاص علامة يهبيلها قفكو مبادئ الرميسين وكباب وكل ماذا انت ضاعد نمدا ومبدأ ضاعد يهبيت المامسة مثلا قرآن إلهي وحين وقال رمي نبي نوح سقال بقول إيه كنتم سندود بانو قوصنين ذي واحد لقيه بعد تصند يدلوا أقبلي ويا الله بقى وصدح وعفر وشان ولحوا toban sannadood haddii dadba ku yeeli waayaan maxaad samayn lahayd warskana sawntee dadkan ilaahay baa meel daran uga yeedhaya malaaye nabi nuux ilaahay wuxuu tilmaamayaa 950 sannadood ayuunbuu waday waxaa kaloo la tilmaamayaa usluub kasta oo uu samayn karo inuu isticmaalay iclaan iyo jihaar iyo israar iyo kor inuu dhawaaqo hoos u sheego la foqo wax walba wuxuu kaloo sheegay laylan wa nahaara inuu waday waqti kasta inuu dacwada waday bale quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa marka dacwada laga warramayo qofku sida uu ikhlaaska ugu yahay dacwadiisa waxaa tilmaamaya sida uu chances kasta uu helo uga faa'iideysto nabiyullaahi yuusuf mas-uuliyadda siduu u dareemayay isagoo xabsi ku jira ayay qola riya u keenta waxay dhahaan riyada noo fasir intaanu riyada u fasirin buu wuxuu u bilaabay mabaadidiisa inuu sharxo wadakhala macahu sijna fatayaan labaa xabsiga la galay dabeetana waxay dhahaan waxaanu ku aragnaa nin fiican inaad tahay ee riyada noo fasir intaanu riyada fasirin ayuu lecture tawxiida u jeediyey marka hore isagaa is-sharxay iyo meeshuu ka yimi inuu mabda'i aabayaashii ibraahim iyo yacquub iyo kuwa uu haysto mabaadidoodii inuu gaalnimada ka fog yahay aakhiro rumaysan yahay dabeetana wuxuu u sheegay arbaabun mutafariquuna war ma rabbiyo badan oo la caabudaabaa khayr badan mise ilaahay keligii subxaana wa tacaala markuu diinta oo dhan ka dhaadhiciyey kadib ayuu wuxuu sheegay riyadoodii wax ku fasirayay yacni jaaniskaasu ka faa'iidaysanayay quraanka waxa kale oo ilaahay kaga warramay qisaska aadka u cajabta leh markaan arkaba ana aadka u yaabo waxa ka mid ah qisada suuratu yaasiin ilaahay ka warramayo magaalo baa ilaahay 3 rasuul iska daba diray 3 rasuul facazaznaahum bithaalithin baa layidhi 3 rasuul baa la iska daba diray waa beeniyeen kii horey beeniyeen oo labaad bay beeniyeen oo saddexaad bay 3 rasuul bay beeniyeen iyagoo 3 rasuul la beeniyey ayaa ilaahay qisada wuxuu kaga warramayaa nin magaalada meel kale ka yimi wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a magaalada halka u dambaysa nin ordaya baa ka yimi baa ilaahay yidhi ninka wax sifo oo kale laynooguma sheegin muxuu wadaa قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وارتلقوا يا الرسول الراعة بولي والراعة قوة هنونسا وان وحبنا إذن كربين أدو ميل 3 رسول لقو بينيه يسكدايه هداد مغشو وداددي هلكا ولا بينيه محاد يالي له محا حريبا دوران له أو هبل يا أو هبل أدي اللي بينيه أنا محا سمين كرا أنا دادك عام مساكين دا كم ده haddaad maqli lahayd rasuul baaba la beeniyey rasuulkiiba waa la diiday oo mid kale ilaahay soo diro waa la diiday oo mid saddexaad baa ilaahay soo diro waa la diiday maxaad odhan lahayd dee kuwaasi waa kuwa ilaahay un halaagayo 3 rasuul hadday diideen yaa wax ka dhaadhicin kara ninkan ismuu odhan 3 rasuul baa la diiday wuxuu is yidhi adna waxbaad qaban kartaa ee shaqada intaada qabo ilaahay markaa wuxuu sheegay weliba ninkani meesha laysku haye ma joogin ee min aqsa almadiina buu ka yimi magaalada dacalkeeda buu ka yimi waxaa laynoo sheegay ha yimaadee qaabku u yimi isagoo roorayuu yimaa la yidhi nin mas-uuliyada saarantoo dareen qaba isagoo ah ayuu yimi kadibna
weedhiisii buu bilaabay oo qof inaga mid aan intaa odhan karin ma jira waryaadha culamada raaca war wadaadkaa khayr buu idin war madaxdaasi wanaag bay idiin sheegtay raacda ma qof aan odhan karin baa jira ilaahay kii intaa yidhi buu qur-aankiisa ku sheegay kii intaa yidhi ayaa ilaahay qur-aanka ku sheegay waxay culamadu yidhahdeen waa la dilay nimankii way dileen dabeetana wuu dhintay markuu dhintay ilaahay baa jannadii geeyey qiila dkhuli ljanna jannada gal baa lagu yidhi ilaahay wuxuu inooga warramayaa isagoo dunidaba ka tegay siduu dadka khayrka haddana ula jeclaa haddii tolkaa intaad u timaado aad tidhahda war diinta raaca oo ay ku dilaan malaa waxaad is odhan lahayd kuwiina miyay noolyihiin ilaa kuwaana midh ha ka reebin ilaa waa kuwii halaaga ku geystay maya qofka daacigii siduu dadka khayrka ula jeceliyay baa ilaahay tilmaamaya isagoo ay dileen oo aakhiro jira ayaa waxaa ilaahay leeyahay qiila dkhuli ljanna waxaa la yidhi jannada gal qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrim alla jeclaan lahaaya buu leeyahay tolkay inay og yihiin sida rabbi ii karaameeye dembigayga u ii dhaafay dee markaa iyana diintay qaadan lahay hadday og yihiin waxa janno iyo nimcome lagu helayo iyana way qaadaan markaa isagoo aakhiro ku maqan ayuu wuxuu rajaynayaa kuwii uu ka yimina alla yaa wax fahamsiiya buu leeyahy nimcadana ka qayb galaane yaa kuwii wax fahamsiiya nicmada tana ka qayb galaane idan qofka daacigaahi waa qof dadka khayrka la jecel maaha qof dadka halaagooda jecel halka yaaba dadkiina badha inay ka fikirayaan gaalada ilaahu madhi uun waar ilaahu hanuuni baa kuu dhaantaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ayaa saxaaba u timid markaase waxay dhaheen nimankii reer dows qabiil adag bay ahaayeen diintana way geli waayeen abu hurayra ka mid ahay abu hurayra markuu soo islaamay ismaan lahayn buu nabigu yidhi qof khayr qabaa ku jira reer dows sida abu hurayra baa kasoo islaamay reer dowskii baa la yidhi diintii qaadan waaye ilaahay rasuulkiisii ow habaar markaasuu nabigu gacmaha korka u taagay markaasaa la yidhi alla kuwaasi jabe maanta haddii nabi maxamedba gacmaha u taagay allaahuma hdi dowsan wahdinii bihim buu nabigu ku duceeyey ilaahu reer dows soo hanuuni oo ii keen buu nabigu ugu duceeyey ilaahu halaag ma odhanina ilaahu maxay soo hanuuni buu ku duceeyey qofka daacigii markaa waa qof qalbisan waa qof dadka wanaagga la jecel waa qof jecel dadku inay liibaanaan oo guulaystaan oo diinta raacaan oo dariiqa xaqa ah ay haleelaan waxaan leenahay waxaynu u baahanay markaa fannu dacwa waa fanni u baahan sabir iyo adkaysi iyo quusasho la'aan qofka aan sabri karini daaci ma noqon karo qur-aanka ilahi wuxuu kaga warramayaa ambiyadiiyo waxa dhib loo geystay iyo sida loo caayay adiga waxa laga yaabaa intaad wax u sheegto hadday ku yidhahdaan war beenaa laatay naga tagana tiraado waar kuwan khayrba kuma jiro dib baanad ugu noqon maqaaxida war maalin baan toga beenaa laatay adigu yidhaaheen qur-aankana ilaahay wuxuu tilmaamayaa ambiyadii oo la leeyahay kaadib iyo saaxir iyo hadda waa nebi ilaahay soo dirtay waa rasuul lagu leeyahay kaadib baad tahay ama saaxir baad tahay ama waad waalantay lagu leeyahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuun bay idhahdeen kan le qur-aan baa laygu soo dejiyay oo waad waalantay bay ku idhahdeen inuu waalan yahay bay xataa suuqa u geliyeen haddana waxaa la farayaa in la sabro oo la adkaysto si kelmadda ilaahay dadkan u wada gaadho sida ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayow isbiruu wasaabiruu waar sabra oo la sabar dhigta baa la yidhi kuwan xumahaba waa ku adkaysanayaan xumahoodii ku adkaystaa idinkuna maxay khayrka sheegistiisa ku adkayso waraabituu dhufayska ugu jir inaad diintaa sheegtid ودفاعدي واتقوا الله لعلكم تفلحون إلهي يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وركوا إيمانك لغا هليو كالميستا إلهي كحدنا شيه سو صلاة يا عبادة يا صبر لبدا كالميستا بالغوري إلهي كحدنا شيه سوى الذات كي النبي محمد بل يري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا مركي دعوة الله صافرين marka waxaa la leeyahay inaad ilaahay ku xidhnaato cibaadadaadu badatid iyo inaad sabirto kaalmaysta wastaciinuu bisabri wasalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin waxaa laga rabaa qofka daacigaahi
laa yay-as ma quusto haddaad tidhahda bal dunidii eeg bal dhan walba ka eeg laguma halaagsan maxaan anigu taraya maxaan qaban karaya waxbaad taraysaa waxbaad qaban karaysaa qof bini aadam aan wax tarin ma jiro rususha baa ilaahay wuxuu soo diray meel lagu jabay nebi maxamed wuxuu yimid dunida oo dhan oo madow muu odhanin oo keligay baa wax bedeli karaa ila dadbay ma rumaynine keli buu ahaa soo maahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidina lama soconin markaasaa la yidhi dadka diinta u sheeg hadduu odhan lahaa ka warran oo ma keligay baa wax bedeli karaya dunida oo dhan oo aan diin ba haysan maanaa bedeli karaa wuu u qumay oo wuu kacay oo waa laga hor yimo waa lala dagaalamo waa la dacaadeeyo waa la maago waa la eriyo dhulkiisii baa laga saarayo waa u hijroodo waa waxaasoo dhan wuxuu u sameeyey u dhabar adeegaya inuu dadka diinta gaadhsiiyo sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahay war kufriga iyo ya'sigaa wada socda innahu laa yay'asu min rawxi illahi ila alkaafiruun ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa kama quustaan inta gaaladaa mooyaane qofka mu'minka ah markaad rumaysantahay rabu samaawaati waalardi inuu kula jiro dadkuba wax kula maaha iyo waxay haystaan iyo duwalka dunida ka jiraaba saa awgeed waxaynu u baahannahay oo dacwadana ay rabtaa xoog baynu leenahay waxay rabtaa dadaan quusanaynin niyad bir oo xadiida leh oo haddaad niyad bir oo xadiida la timaado lagu tumana dee sabir haddii lagu dhegaysan waayana sabir ma ogid adigu dacwaddaadu goortay midho dhalan doonto maxaan uga dan leeyahay waxba ha yarayseen maalan caalam alislaami wakhtiyadaa uu jabay مثلا casri baa jira baqdaad iyo meeshii caalamulislaami looga talin jiray dowla albuhaywiya ay qabsatay waa dowladii rashiica ahayd qaraamidadiina ay xajarul aswad kaba qaateen kuwa baatiniyiin oo diin la-aan lawayaal kala ah caalamulislaami oo dhammi uu baaba'ay aad mashaakilku ugu tiro batay qolo gaala ah baa soo islaamtay salaajaqada nimanka la yidhaahdo nin baa dowlad turkigu lahaa dad atraak oo meel ka dhisan baa ninkii hogaamiyihiisii difaaca iyo ninkii madaxdaabaa kala shakiyey wuu ka soo cararay dhowr boqol oo reerkoodaa buu soo kaxaystay qaybahan muslimiintu degan yihiin qayb abuu iska soo degay niman culamo una wadaadaa u tegay oo say ugu wadeen diintii bay ka dhaadhiciyeen ninkii iyo kooxdiisii way islaameen dabeetana way soo wadeen calaa kulli xaal dowla salaajiqa ee aad taqaaniin nimankan bay ka soo jeedaan waa nimankii ahlu sunnaa dib u soo celiyey ee raafidadii iyo shiicadii baqdaad qabsatay dib uga xoreeyey ee maxaa la yidhahdaa bale waxaa kaaga filan waa nimankii ciidamadii boqorkii romaniska soo qabtay nimankii lahaa weeyaan alabarsalaan waa ku abtirsadaa dadka waxaasoo dhan diinta u qabtay ciddii islaamisay garan mayno waa jundi majhuulka yani waxaan uga dan leeyahay qof muslim ah oo isxilqaamay oo isli diinta xil baa kaa saaran ee dadka ugu yeedh oo kuwa islaamiyey baa waxaa ka ratibmay caalam islaam oo dhan uu dib u xoreeyo idan adigu ma ogid midhaha ka dhalan doono juhdigaaga adigu waxba ha yaraysanin adigu dariiqana ku sugnow diintana dadka ugu yeedh kaad islaamisay ama kaad hagaajisay ama kaad saxday inuu dunidaba bedeli doono baa la arkaa sida awgeed waxaa korkeenna saaran alcamalu waalikhlaas inaynu ilaahayna tala saaranno shaqaynana oo ilaahay diintiisa dadka ugu yeedhno garan mayno dacwaddeennu goortay midho dhalin doonto qof aad maanta islaamisay wixii ka ratib ma laga yaabaa madaxweynaha dunidaba inuu noqdo caalamkaba hogaamiyo ninkaa caalamka hogaamiye wuxuu hogaamiye o dhan ajarkooda dee adaa iska leh aday kitaabkaaga ku qormayaan aakhiro laakiin adigu maad ogeyn si awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun wasaturadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun ilahay wuxuu ina leeyahy waqul icmaluu war camal sameeya ilaahay baa arkaya waxaa samaysateen iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniintaaba waxaana laydiin soo celin doonaa ilaahay agtiisa ilaahayna isagaa caalimu alghaybi waashahaada fayunabi'ukum
wuxuu idinka warrami doonaa bima kuntum tacmaluun waxaa camal shaqaysanayseen. waxaan kusoo koobayaa markaa leeyahay dunidaynu maanta joogno waa duni mudarib ah, waa duni qasan. xalkeediina kitaabka miiskaa saaran buu ku jira. kitaabkuna isagu ma hadlo. ciddii u hadli lahayd buu u baahan yahay dadkan iyo kitaabkaa isku xidhi lahayd. ciddii ilaahay subxaana wa tacaala iyo bini aadamka isku xidhi lahayd. qofka daacigii marka waa shaqada, waa shaqadii rusushu qaban jirtay iyo dadkii saalixiinta ayaa dadka qur-aanku ka warramayo. waa shaqo inooga baahan inaynu wax bedelo. dunida aynu maanta ku nool lahayna waa duni afkaartu ay adigoo gurigaaga fadhiya dunida oo dhan raadayn kartaa. afkaartu tamshi. wasaa'il al-ittisaal al-xadiitha ee internet le, ee raadiyo le, ee tv le, ee qoraal le, waxaan maanta dunidu wasaa'il oo dhan baa ilaahay fududiyay. laakiin wasaa'ilka ahlu sharkuna waa adeegsanayaan, ahlu khayrkuna dee inay adeegsadaan bay ahayd. maanta waxaad moodaa ahlu sharku inay ka war keeneen, si fiican u adeegsadeen. nadkaad gashay iyo tv-gaad gashay iyo waxaad gashaa. waxaa la la'yahay dadkii ahlu khayrka si fiican u adeegsan lahaa. waxaa laga yaabaa dad badan maskaxdooda inay ka guuxayso dowlad xoog leh iyo qori iyo military. war militarigu dadka qulubtooda ma bedelo. dowladda ugu xoog badan soo maraykan maanta dunida uguma xoog badnaa. dadku ma jeclaanayaan maraykan, isma jeclaysiin karo. askarta iyo qoryuhu dhul bay ilaaliyaan iyo dad bay ilaaliyaan, wax ma bedelaan. waxa wax bedela waa dacwadda iyo diinta iyo sida loo sheego. nin waliba afkaartiisu suuq geystay ee inaynu teenna suuq geyno. suuq geynteeduna waa un inaynu dacwadaa ku dhawaaqno ugu yeedhno. wasala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.